السلام عليكم سودو لباحي لباحات maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo film lagu magacaabo The Revenge ka horseynta aan ugu gudagelin muuqaalkeena waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma isku dayi kartaa in 1 ilaa 10 aad ku qiimeyso muuqaaladeena sidoo kalena aad ku qorto commentiga wixii kaaga baxay muuqaalkeena maanta oo aad u xiiso badan kale gabdhuhu waan fici doonaay saaxiibayaal aynu soo laabano gudaha muuqaalkeena qisada filmku waxa ay ku bilaabanaysaa wiilkan oo lagu magacaabo Richard iyo saaxiibtiisa Jane kuwa oo raba in waqtigooda fasaxa ay ku qaataan saxaraha isla muuqaalka markaana waxaan ku Richard iyo saaxiibtiisa oo ka soo degay helicopterkii ay ku yimaadeen goobtii ay rabeen inay ku qaataan fasaxa inta kadibna dooliyihii diyaaradda waxa uu Richard u dhiibayaa daroogo isagoo u tilmaamaya in tani ay tahay daroogada ugu qaalisan dunida sidoo kalena leh saameyn waali ah oo ay qofku ka dhigaysa mid halowsan inta kadibna waxay imaanayaan guriga ay rabeen inay degaan waxa uu ku yaalaa bartamaha saxrada sidoo kalena halka aysan cidina u dhaweyn sida iska cadna Richard waa xaasle balse Jane ma ogeyn saaxiibkeedu uu yahay xaasle inta kadibna waxay halka ku qaadanayaan maalinkoodii koowaad sida iska caadigaana subaxii xigay Jane oo u socota kushiinka si ay u diyaariso quraacda si lama filaana waxa ay ku arkaysaa laba nin oo hubaysan sidoo kalena taagan iridda guriga halka wajigoodana uu ka muuqdo daal Jane isla markiiba waxa galaysa xogaa cabsi ah laakiin si niyada waxay dareemaysaa in ay doonayaan in iyaguna ay halkan ku qaataan fasaxooda si lama filaana waxa uu imaanaya Richard oo hore ka aqoonsanaya labadii nin kuwa lagu kala magacaabo Zam iyo Demat inta kadibna Jane waxa uu sheegayaa in ay yihiin saaxiibadii kuwa oo halka u yimaaday inay waqtigooda ku qaataan maadaama ay yihiin kuwa leh reer yacni xaasas wuxuuna u sii sheegayaa inay yihiin dadka ugu hantida badan magaalada oo ay u shaqeeyaan shirkadaha ugu waaweyn wadanka inta kadibna si wada jira saddexdoodu waxay bilaawayaan in waqtigooda iyo dalxiiskooduba ay halka ku qaataan habeenkii waxay qabsanayaan xaflad yar iyaga oo doonaya inay si wacan u sheekaystaan inta kadibna Zam iyo Demet waxay bilaawayaan inay u soo dhawaadaan Jane halka mid kastana oo si iskiisa u doonayay iyada Jane oo dareen ahaan feejigan waxay dareemaysaa dhaqdhaqaaqooda waxay kadibna waxa meesha imaanaya saaxiibkeeda Richard waxay bilaawayaan inay si wada jira u casheeyaan ayna gudagalaan in si wada jira ay u cawaan sharaabkooda marka laga reebo Zam oo aad ula dhacsanaa Jane in cabaara kadibna Zam waxa uu si kadiisa miiska ugu arkaya daroogadii isaga oo yaaban waxa uu weydiinayaa halka ay ka keeneen Richard waxa uu sheegayaa in tani ay tahay mid awood badan qofkana ay si toos ah u istiiminayso oo uga dhigayso qof halowsan Zam oo aad uga carooday daroogada waxa uu Richard u sheegayaa inuu sameeyay qalad weyn maadaama ay wataan hub sidoo kalena laga yaabo qofkii cawa in maskaxdiisu ay siiso inuu laayo dadka kale inta kadibna Richard oo aan hadalka dhag u siinaynin waxa uu bilaabayaa in Jane uu siiyo qayb kamid ah daroogadii Jane oo fahamsan qorshahooda oo idil way ka qaadaysaa kadibna waxay soo aadaysaa qolkeeda si uu ugu mooday inay cabtay inta kadibna markii la gaaray xilli dambe mid walba waxa uu bilaabayaa inuu aado qolkiisa subaxii markii uu waagu bariyay Jane waxay xilli hore ka soo toosaysaa hurdada in cabaara kadib waxa ay guriga ka dhaxweynaysaa saaxiibkeeda Richard waxa ay u soo baxaysaa banaanka mise waxay arkaysaa Zam oo halka leerta ku cawaya waxay si caadi ah u weydiinaysaa waxa helay Richard laakiin si kaftana waxa uu sheegayaa inuu baxay oo uu raacay diyaarad laakiin mar kale Jane oo yaaban waxay haddana weydiinaysaa halka uu Demet isaguna aaday waxa uu sheegayaa in uu wali hurdo maadaama uu xali si zaa'id ah madaxa u furtay inta kadibna waxa uu la galayaa hadallo uu rabay inuu ugu dhawaado laakiin Jane isla markiiba waxa galaysa cabsi hor leh maadaama uu Zam isku dayayo inuu u soo dhawaado waxyar kadibna waxay ka kacaysaa goobta iyadoo iska dhigaysa qof gudaha wax ka soo qaadanaya inta kadib waxay soo galaysaa qolkeeda mise kama kadib waxay ka warhelaysaa Zam oo ku jiro gudaha qolkeeda iskuna dayaya inuu sameeyo dariiq walba oo iyadu ugu soo dhawaan karo laakiin Jane oo wali dareensan ujeedkiisa waxay isku dayaysaa inay ka fogaato ilaa ugu dambeyn ay si weji ka weji ah ugu sheegtay inaysan doonaynin balse si lama filaana intaysan dhammaynin hadalka waxaa labadooda isku arkaya Demet oo iska socday goobta isla markiiba isagoo aan isdareensiinin uu ka tagayaa in cabaara kadib Richard oo imaanaya guriga waxa uu dareemayaa in wajiyada saaxiibadii aysan wacnayn waxa uu weydiinayaa waxa ku dhacay laakiin uma jawaabayaan inta kadib waxa uu soo aadayaa Jane oo iyaduna ka muuqato murug waxa uu isku dayayaa inuu dejiyo inta kadibna waxa uu ogaanayaa in Zam uu isku dayay inuu soo dhawaado iyada isagoo arintan wax weyn ka soo qaadin waxa uu ku soo laabanayaa iyada laakiin si cad waxay ugu sheegaysaa inay doonayso inay aado gurigeeda si dhaqsi ah oo ugu waco diyaaradda laakiin Richard oo wali isku dayay in xaaladdu uu u dejiyo waxa uu sheegayaa in qayb laga siin doono shirkadda ugu weyn ee magaalada haddii ay aqbasho Zam maadaama uu yahay hantiile Jane isla markiiba si cad way ka diidaysaa laakiin Richard oo wali hadal ku wada waxa uu ballan qaadayaa lacag waali ah si kaliya ay u soo dhaweyso Zam Jane oo yaaban isla markii ay ka maqasho kelmadda waxa galaysa murugo zaahida maadaama uu ahaa qofka kaliya ee halkan u timaaday isaguna uu kula hadlay luqad nooc kale ah iyadoo isdhiirinayso waxay si adag ugu sheegaysaa inaysan u soo jeedin waxa kaliyana ay doonayso inay aado gurigeeda si dhaqsi lehna ugu wada goobtaan laakiin markiisi isaguna wuu ka diidayaa inta kadib Jane waxay bilaawaysaa inay u handado Richard iyadoo oo si cod dheer ugu sheegtay inay sameyn doonto ficil qaldan haddii uu Zam u soo dhawaado mar kale laakiin Richard oo ka xanaaqsan hadalka waxa uu ku dhufanayaa dharbaaxsho sababtay inay xitaa ku dhacdo dhulka isagoo ugu sii daraya hanjabaad ah haddii ay sameyso ficil kale inuu dhaafin doono nafta laakiin Jane oo badbaadsanaysa
fiirisa nolosheeda waxay isla markiiba si degdeg ah uga soo baxaysaa guriga iyadoo isku dayaysa inay ku baxsato saxaraha halka Richardna uu cararayo gadaasheeda si uu u soo qabto isla xilligaana labadiisa saaxiib iyaguna markii ay arkaan waxay bilaawayaan inay soo ceersadaan si la mid ah Richard laakiin Jane waxay isku dayaysaa inay ku orodo xawaaraheeda ugu dambeeya ilaa ay tagto jiinka dambe ee buurta taasi oo ka dhigan inay soo taabatay sagxadii ugu dambeysay sidoo kalena Richard iyo saaxiibadiinu ay heleen fursad ay iyadu ku qabtaan maadaama ay ka dambeeyaan kaliya dhagaxaan haddii ay iska tuurtana huwaal ay weyn doonto nafteeda daqiiqado kadib Richard iyo saaxiibadii iyaguna waxay imaanayaan goobta iyagoo ka kala istaagaya dhinac walba waxay isku dayayaan inay dejiyaan oo ay ka celiyaan inay iska tuurto buurta laakiin kama yeelayso inay u soo dhawaadaan isla xilliga Richard isaguna waxa uu isku dayayaa inuu sasabo waxa uu iska dhigayaa qof wacaya duuliyihii helikobtarka si ay u qaadaan oo ay ugu celiyaan magaalada waxayna taasi keentay in xoogaa ay isdejiso Jane oo ay moodo in si run ah uu wacayo laakiin nasiib xumo Richard waxa uu gabadhiisi ka soo waridayaa goobta Jane isla markiiba waxa haleelaya dhagax weyn iyadoo weliba aad u dhigbaxaysa Richard iyo saaxiibadii markii ay fiiriyaan waxay moodayaan inay hamaasatay yacni ay dhimatay intaa kadibna waxay go'aansanayaan inay qariyaan oo ay baabiyaan wixii raad ah oo ay lahayd waxay xitaa gubayaan fiisihii dalxiiskeeda si aanan loo fahmin iyada oo idil xaaliyan iyagu waxay moodaan inay dhimatay laakiin Jane oo ka muuqdo dhaawac daran waxay bilaawaysaa dhaqdhaqaaq laakiin si lama filaana iyadoonan istaagin waxay ka war helaysaa codka gawaaridii ay wateen Richard iyo labadiisa saaxiib kuwa oo doonayay in markan ay si dhaba u soo hubsadaan meydkeeda Jane oo ku yaryahay dhaqaaqa waxay bilaawaysaa inay iska qariso iyaga si aysan u sii dhamaystirin Richard iyo labadiisa saaxiib markii ay yimaadaan si lama filaana waxayba ka war helayaan inaysan iyadu joogin goobta Sam wuxuu aad ugu qaylinayaa Richard isagoo u sheegaya in noloshooda khatar ku tahay haddii ay badbaado Jane saddexdooduba waxay go'aansanayeen inay raadiyaan iyada si ay u dhamaystiraan waxyar kadibna waxay ka soo degayaan buurtii in cabaara kadib oo ay raadinayeen waxay helayaan raadka dhiigii ka socday isla markiiba waxay bilaawayaan inay raacaan raadkeeda ilaa ay ku yimaadeen goob biyo mareen ah isla xilligaana waxaan aragnaa Jane oo ka soo baxaysa biyaha maadaama ay ku quusaysay intii Richard iyo saaxiibadii ay kortaagnaayeen isla biyaha markii ay u soo baxdo banaanka isla markiiba waxay arkaysaa Sam oo keligii taagan goobta si degdeg ah waxay bilaawaysaa inay raadiso waxa ay ku disho ilaa ay aragto qorigii uu watay oo dhinac yaala si dhaqsi leh waxa ay u qabsanaysaa qoriga si ay ugu aadiso isaga nasiib xumase kuma aysan jirin wax rasaas ah intaa kadib Sam waxa uu ka qaadanayaa qorigii kadibna waxa uu bilaabayaa inuu garaaco waxa uu sheegayaa inuu wacayo saaxiibadii si markaan ay si toos ah ugu dhamaystiraan intaa kadibna waxa uu bilaabayaa in marka hore uu isaga laftirkiisa geliyo biyaha si uu ugu maasheeyo laakiin fursadu marbay gacanta ku haatisaay waxay ka dafaysaa mindidii uu watay kadibna waxa ay ku mudaysaa ilaa inta ay naftu ka baxayso Jane markaan waxa ay heshay fursada guusheeda maadaama ay dishay number 1 cadowgeeda intaa kadibna waxa ay soo qaadanaysaa gaarigii iyo qorigii uu watay si ay uga argudato labadii kale intii ay wadada socotay waxay arkaysaa gud mugdi ah isla markiiba waxa ay soo galaysaa gudaha godka si ay isugu qariso dhaawaceeduna ay ugu dabiibto waxyar kadibna waxa ay shidanaysaa dab holac ah si ay dhaawaceeda ugu daaweyso waxay la soo baxaysaa mindi kadibna waxa ay gelinaysaa dabka waxay bilaabaysaa in meesha dhaawaca ay ku dejiso birta kuleelka ah laakiin haddana ma awoodeyso xanuunka hayay darteed intaa kadib waxa ay soo xasuusanaysaa daroogadii uu Richard siinayay kuna sheegayay in qofka ay si toos ah uga dhigayso mid halowsan waxay bilaabaysaa inay cabto si isku ilowsiiso xanuunka dhaawaceeda in cabaara kadibna sida muuqato waxa ay ku dhacaysaa gudaha godka subaxii xigay Richard waxa uu imaanayaa saaxiibkiisa Dimit oo ku dhex hurdayay gaarigiisa markii uu ka toosiyay hurdada waxa uu sheegayaa in saaxiibkooda uu laayahay maadaama uusan ka helin wax xiriir ah tan ilaa iyo xalay Dimit waxa uu ka soo degayaa gaariga si wajigu uu u soo dhaqdo biyaha laakiin wuu argagaxayaa markii uu arko wajiga saaxiibkiisa Sam oo quusiyay biyaha isaga oo halowsan aadna u cabsanaya waxa uu ku soo laabanayaa gaarigiisa laakiin Richard isaguna markii uu arko waxa uu meedka u soo bixinayaa banaanka waxyar kadibna waxa uu garaacayaa Dimit isaga oo ku eedanaya in wax walba ay ku dhaceen sababtiisa dhanka Jane iyaduna waxa ay ku riyoonaysaa riya cabsi leh taasi oo u keentay daroogadii cabtay markii ay ka toosto hurdada waxay bilaabaysaa in nafteeda ay diyaariso si labadii kale ay uga argudsato intaa kadibna markaan waxa ay la soo baxaysaa doobiro si ay u cabirato oo ay u ogaato halka ay joogaan labadooda waxyar kadib waxay arkaysaa Dimit oo keligiisa wata gaari laakiin ka dhamaaday shidaalkii isla markiiba waxa ay ku aadinaysaa qoriga si ay meel dheer uga toogato marka hore way la jaraynaysaa maadaama ay tahay markii ugu horeysay ay adeegsato qori daqiiqada kadib waxay Dimit xabad uga dhufanaysaa garabka halka isla xilligaana iyaduna ay ku dhacayso dhulka awoodda qoriga awgiis intaa kadib way soo kacaysaa isla markiiba waxay bilaabaysaa inay u dhaqaaqdo dhinacii Dimit maadaama ay ogaatay inuu yahay dhaawac laakiin si kidiisa uu ka qorsoomaya in cabaara iyada oo raadinaysa waxay ka arkaysaa gadaasheeda isaga oo weliba raba inuu toogto balse iyadoo isdhiirinaysa waxay dhulka ugu daadinaysaa dhalo kadibna way ka cararaysaa intii islahaa ceerso mar kale haddana waxa uu ku dhaawacmayaa dhaladii ay ku daadisay isaga oo markaa niyajabsan waxa uu go'aansanayaa inuu ku laabto gaarigiisa si uu ugu badbaadsaday inta yar ee u hartay laakiin nasiib xumo Jane markii ay aragtay isla markiiba waxa ay ka tooganaysaa madaxa waxayna si toos ah markaan u dhaafinaysaa nafta intaa kadib Jane markaan waxa ay dareemaysaa farxad
farxad maadaama ay ka aarsatay laba ka mid a cadowgeeda, iyadoo weliba isku diyaarinaysa inay nafta dhaafiso kii sababta u lahaa inay sidan noqoto. Waxa uu iska fadhiisanayaa dhulka maadaama uu weli sugayo saaxiibkiisa Demid, balse uusanba ka warhayn in lagu kala baxay. In cabaara kadib Richard markan waxa uu go'aansanayaa inuu isaga laabto guriga maadaama uu adkeysan waayay kuleelka qoraxda. Markii uu yimaado gurigii waxa uu wacayaa doolihii si uu u qaado markan maadaama uu xaqiiqsaday in Jane ay laysay saaxiibadii, sidoo kalena markan ay kusoo wajahan tahay dhinaciisa. Intaa kadib waxa uu bilaabayaa inuu isnadiifiyo oo uu hagaajiyo jirkiisa si uu magaalada ugu laabto isagoo aan ka muuqanin wax raad ah. In cabaara kadib isagoo ku jira gudaha musqusha waxa uu maqlayaa dhaqdhaqaaqa iyo jaqafta qof soo geliya gudaha guriga. Markiiba waxa uu soo baxayaa banaanka, laakiin si lama filaana waxa uu ka war helayaa Jane oo joogta guriga, iyaduna isla markii ay isha saarto waxay ku dhufanaysaa xabad. Intaa kadibna isagoo dhaawaca uu ka qarsoomaya, Jane oo u socotaa si tartiib waxa ay soo galaysaa gudaha guriga, laakiinse si lama filaana isagoo ugu dhuumanaya meel waxay arkaysaa dhiiggiisa. Markii ay isku daydo inay weerarto sikadiisa waxay ogaanaysaa inuusanba ku jirin goobta. Intaa kadib iyadoo oo ku dhex socota gudaha guriga, nasiib xumase waxa ay ku dhacaysaa dhiiggii daasanaa goobta, halka Richard oo aaminsan inuu helay fursadii uu iyadu ku dili lahaa uu kusoo boodaya. Laakiin nasiib wanaag intuusanba soo gaarin, Jane waxa ay qabsanaysaa qorigii iyadoo oo wejiga baas uga taxaysa. Ugu dambeynna filimka waxa uu soo dhammaanayaa iyadoo aad u faraxsan kana argoosatay 3 ka mid a cadowgeedii doonayay inay dhaafiyaan nafta, isla markiina waxaaba goobta soo gaaraya diyaaradii si ay dib ugu celiso magaalada, weliba iyadoo oo maanka ku haysa inay tahay strong woman. Waa sida ay inta badan sheegtaan gabdhaheena. Calaa taxal waxaynu soo gaarnay gunaanudka mawduuceena maanta. Sidoo kale yahay sheekada xiisaha leh ee ku hoos duugan filimkeena maanta. Haddaba waynoo kommentiga mahadsanid.